بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين الخاشعين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan soo wadnay siiradii suubanayd ee nebigeena moxamed aha sala allahu calayhi wasalam. waxaan ka soo warramnay waxyaalihii dhacay dagaalkii uxud. dagaalkii uxudna wuxuu reebay raad buu ku reebay muslimiinta, sababtoo ah haziima nowcan ma ayaa soo gaadhay muslimiinta. nimankii gaaleedna waxay dareemeen inay muslimiinta ka rayn karaan, marka khataro fara badan ayaa la soo daristay muslimiinta. cadowdii muslimiinta oo ay ugu horeeyeen yahuudi iyo munaafiqiintii ugu la deganaa magaalada madiina, iyaguna micyaha ayay la soo baxeen. wayna kooxihii yaraa ee kale ee deganaa magaalada madiina hareeraheeda waa reer baadiyihii, iyaga laftigoodana hunguri baa ka galay inay magaalada madiina ay kusoo duulaan oo weerar ay kusoo qaadaan oo ay afka mariyaan intan yara muslimiinta ah ee soo hadhay. laakiin subxaan allah, hogaamiyayaashii magaalada madiina oo uga horeeya sayidina moxamed rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam muu ahayn nin hurda, waxa uu ahaa mid soo jeeda oo og dhaqdhaqaaqa gaaleed iyo dhaqdhaqaaqa acraabta magaalada madiina hareeraheeda joogaba. isla markiiba sayidina rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu diray sariya, yacni duulaan uu hogaaminayo saxaabigii abasalama radia allahu canh. kooxdani waxayd kooxdii ugu horreysay ee dagaalkii bederka dib la diray. waxaa loo diray qabiilkan la dhaho reer banu asad, bani khusayma, qabaa'ilkaasaa loo diray. waayo sababtoo ah sirdoonkii magaalada madiina ayaa waxa uu soo gudbiyey in ninka la dhaho talxa iyo salma ibnay khuwaylid, labadaa nin in ay qoomkoodii u tageen iyo reerahoodii iyo ciddii kale adeecda ee doonaysa inay la dagaalanto sayidina rasuulillahi sala allahu alay wasalam. marka way u tageenoo waxay ku booriyeen dagaal ka dhan ah moxamedu rasuulillah. marka rasuulku sala allahu alay wasalam markiiba markuu maqlay sirdoonkiisii ay u yimaadeen oo loo sheegay, wuxuu si kadis ah oo dhaqso ah markiiba u diray koox muslimiina 150 dagaalyahan buu diray oo isugu jira saxaabadii muhaajiriinta iyo ansaarta. waxaana kooxdan hogaaminayay saxaabigii qaaliga ahaa abasalama radia allahu canh, isagaana caalanka u hayay. abasalama wuxuu u tegay meeshii reer bani asad ayuu tegay intaana iyagii aanay isku dayin inay weerar kusoo qaadaan magaalada madiina. arrinkoodii iyo howlahoodii oo kala daadsan buu yimi, markaasay firdhadeen. dabadeedna abasalama waa iskaga soo noqday magaalada madiina isagoo saalimiin khaanimiin ah, iyagoo muslimiintii soo guulaystay soona khanimaystay ayay kusoo noqdeen magaalada madiina oo nimankii gaaleedna rucbi iyo argagax geliyey. duulaankaasna wuxuu dhacay sanadkii 4 ee hijrada. abasalamana radia allahu canhu dhaawac ka soo gaadhay dagaalkii uxud ayaa marka kan ku furmay. dhaawacii ayaa dabeedna uu u geeriyooday radia allahu canhu. halkaas baanu ku geeriyooday magaaladii madiina. intaa wixii ka dambeeyey sayidina rasuulillahi sala allahu alay wasalam markiiba wuxuu diray saxaabi kale, cabdullaahi ibnu unays ayuu diray oo wuxuu maqlay istikhbaaraadkii iyo sirdoonkii magaalada madiina. markiiba waxay soo gudbiyeen ninka la dhaho khaalid ibnu sufyaan alhudali oo madax u ahaa qabaa'ilkan hudaliyiinta inuu isaguna koox urursanayo sidii muslimiinta uu weerar ugu soo qaada, gaar ahaan magaalada madiina. dabadeedna nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu diray saxaabigan cabdillaahi ibnu unays oo wuxuu yihi, yaa doonayo ka takhallusaya ninka kan? cabdillaahi ibnu unays baydhanaa ka takhallusaya yaa rasuul allah. waa la diray ninkii saxaabiga ahaa, wuu baxay, wuxuuna sii socday 8 habeen buu ku maqnaa meeshaas. falkii lagu yidhi soo qabana waa soo qabtay oo ninkii khaalid ibnu sufyaan alhudali buu u tegay. markuu u tegay ayuu wuxuu ku yidhi, wuxuu iska dhigay nin aanu garanaynin
nin abwaana buu iska dhigay oo gabayadii carabta xafidsan. dabadeedna ninkan la idhaahdo khaalid ibnu sufyaanna nin buu ahaa gabayada aada u jecel. kaasna waxay idhahdeen aan isu gabay dhiganno. halkaas baana gabaygii habeen dhan ay soo wada jeedeen. kadibna ninkii khaalid ahaa waa la dilay. dabadeedna kurtiisii intuu soo qaaday ayuu kusoo hordhigay halkaa nebiga sala allahu alay slam hortiisa. uu yidhi waa kan gaalkii doonayay inuu ku dilo adiga. markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa intuu ul siiyo cabdillaahi ibnu unays, ushaas qaado, waxay aayadii calaamad kugu tahay maalinta qayaame, oo ushaas jannada ayaad ku tukubaysa. laa ilaaha ila allah. bal u fiirsada, ul uu jannada ku tukubayo ayuu nebigu u dhiibay sala allahu calayhi wasalam. saxaabigana inana markuu geeriyooday cabdillahi ibnu unays, isaguna wuxuu faray dadkii aasayay xabaashiisa in ushii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu siiyey in lagu aaso qabrigiisa, waana lagu aasa. dhacdadaa wixii ka dambeeyey waxay ahayd dhacdo kaloo naxdin leh oo saxaabo badan oo muslimiinta ka mid ah lagu laayay oo shirqool lagu dilay. bishii safar ee sanadkii 4 ee hijriga ayaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yimi qoom ama koox ka socota qabaa'ilkan cudaliyiinta iyo qoore la dhaho. waxayna sheegeen qabaa'ilkan in dad muslimiin ay soo islaameen oo ay u baahan yihiin cid barta qur-aanka kariimka iyo diinta u sharaxda. kadibna nebigu sala allahu calayhi wasalam 10 ka mid a saxaabadiisii buu diray. waxaana 10kan hogaamiye looga dhigay saxaabiga caasim ibnu thaabit. saxaabigaasaa hogaamiye u noqday. markay marayeen deegaanka la dhaho rajiic oo u dhexeeya raabiq iyo jidda dhexdooda markay marayeen ayay nimankii u qayladhaan dirsadeen qabaa'ilkii hudaliyiinta. dabadeedna waa la hareereeyey saxaabadii. markii la hareereeyey ayaa waxaa la yidhi waa shirqool baa loo dhigay, laa ilaaha ila allah. marka waxay ku dhaheen fardihii iyo awrtii ay saarnaayeen kasoo dega, ballan iyo axdi baan idin qaadayna hataa kasoo degtaan inaanaan waxba idin yeelaynin oo aanan idin dilaynin. laakiin markiiba shirqoolkoodii been buu ahaayo shirqool bay maleegayeenoo 7 ka mid ah ayay fallaadho ku dileen saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. 3 soo hadhay oo ahaa khubayb radiallahu canhu iyo zayd ibnu dathina iyo nin kale, 3daasaa yidhi diiday oo yidhi ma degayno, shirqool baad samayseen oo waadna maleegteen iyo dhagar baad noo maleegteen, anagu kama degayno. haddana cuhuud kale iyo axdiyo kale iyo ballamo kale akhriyeen oo dhaheen ballan baan idin qaadayna haddaa soo degtaan inaana waxba idin yeeleen. calaa kulli xaal haddana ballantoodii bay buriyeen, wayna qabteen 3dii nin. ninkii kale way dileen, saxaabigii kale khubayb iyo zayd labadiiba waa la qabtay. deetana way iibiyeenoo waxay ka iibiyeen magaalada maka. laa ilaaha ila allah. labada ninna waxay ahaayeen saxaabadani waxay ahaayeen dagaalkii beder raggii ka qayb galay ee dilay madaxdii gaaleed dilay. marka nimankii gaaleed ee quraysheed ee magaalada maka joogay aad bay isu cuncunayeenoo waxay rabeen inay nimankan ugu aargudaan aabbayaashoodii iyo raggii lagu dilay dagaalkii beder. markii la keenay khubayb loo keenay ayay dadkii gaaleed ee deganaa magaalada maka kusoo urureen si loo dilo oo loo salbiyo. dabadeedna waa la isugu yimi saxaabadii ama dadkii gaalada ahaayoo dhan baa isugu yimi halkaas. wuxuu dhahay khubayb iyo ogolaada inaan anigu tukado 2 ragcadood oo keliya, kadibna waxaad doontaan aad samaysaan. waana u ogolaadeen. kadibna 2 ragcadood buu tukaday saxaabigaasi khubayb. dabadeedna 2dii ragcadood markuu tukaday ayuu wuxuu ku lahaa allaan ku dhaartay waan dheerayn lahaa salaadayda haddaydan u malaynayn inaan ka cabsanayo geerida iyo warwarkeeda. haddaanad u malaynaynin waan iska dheeraysan lahaa salaadayda. kadibna waa habaaray saxaabigani oo waxaa kii lahaa allahuma axsihim cadada waqtulhum badada walaa tabqa minhum axada. midna ha ka reebin buu ayuu leeyahay saxaabigani, rabbiyow nimankan gaaleed oo wada dil. kadibna wuxuu akhriyay gabay aada u qurux badan oo ay ka mid ahayeen walastu ubali xiina uqtalu muslima cala ayi shayin kana fi llahi madajaci wadalika fi dati lilahi wan yasha yubaarik cala awsaalin shallu mumazaci. gabayga aadka u quruxda badan lou leeyahay dan iyo muraadtoona kama lihi. haddii lay dilaayo anigoo muslim ah, haddii lay dilaayo oo dar ilaahay la ii dilaayo wax aan ka qaba ma jirto geerida. kadibna ninka abaa sufyaan ahaaba wuxuu ku yidhi
ma jeclaan lahayd in booskan aad joogtid ee aan kugu dilaynan kurta kaaga jarayno inuu Muxamed ku jiro adiguna aad gurigaaga joogtid aad ku raaxaysanaysid Allahu akbar jawaabtu siiye uu fiirsada Khubayb wuxuu yidhi wallaahi allaha man ku dhaartay ma farxad gelinayso inaan anigu naano halkan jooga in Muxamed rasuulullah isagoo gurigiisa jooga ay qodax yari dhibto ama qodax yari ay muddo wallaahi baan ay raali gelinayno farxad gelinin la ilaaha illa allah kadibna way salbiyeen oo way dileen wayna salbiyeen oo geed bay ka soo luleen dabadeedna waxa uu wakiisheen oo kaga tageen rag ilaaliya meydkiisa laakiin saxaabigan Amr ibn Umayya ad-Damri ayaa habeenkii qaab khiyaano ah intuu u yimi meeshii nimankii intuu khiyaameeyey ayuu qaab khudaca ah ayuu ka qaatay ninkii meydkiisii saxaabigii Khubayb dabadeedna wuu aasay halkaasaan ku xabaalay radiyallahu anhu saasaan ku dhintay saxaabigaasi laakiin saxaabigii kale la soo qabtay Zayd isagana waxa loo dilay nimankii gaaleed baa waxay u dileen raggii madaxda ahaa ee magaalada Badar lagu dilay ayaa isagana loo dilay saxaabigii hogaamiyaha ahaa Aasim ibn Thabit uu nabigu 10 nin shirqoolka loo dhigay hogaamiyaha looga dhigay isaguna wuxuu kamid ahaa raggii madaxdii Quraysheed dilay marka iyagana aad bay ugu dhaaranaayeen oo ninkan waxay doonayeen isagana inay dilaan bal aynay dilaan may doonayeen waxay ku dhaar galeen in marka la dilo oo in qoocidda soo dishay madaxiisa keenta in xoolo iyo hanti la siin doono geela cascas la siin doono madaxiisana waxay doonayeen in inta khamri ku shubtaan jumjumada iyo madaxa halkan iskalkan sare ee marka hilibka laga saaro lafta madaxeeda intay weel ka dhigaan khamri ay ku cabaan saasay nada ku galeen subhanallah ala kulli xaal saxaabigani uu ogaa in la dilayo kulliba raggiibu la dagaalamay wayna dileen markuu la dilay ayuu ilaahay ka baryayay intaanu dhimanin rabbi oo sidan subaxa maanta aanu ilaalinayay diintaada adiguna gelinka dambe marka shahiidka noqday la dilo u ilaali jidhkayga subhanallah dabadeedna ninkii markii ay dileen ayaa markaliya waxa ku soo booday jidhkiisii dabr yaani cayaan ayaa ka hor istaagay in nimankii ay kurta ka gooyaan dabadeedna waxay dhaheen nimankii gaaleed gelinka dambe aan ku soo noqonaynaa markay soo noqdeenba waa laga waayay jidhkiisii meesha subhanallah daad baa yimi oo qaaday sidoo Allah diintiisa ugu gargaaray gelinkii hore ayaa Allah Raxmaanka ahina jidhkiisii la doonayay in khamri iyo balaayo lagu cabo ayuu Allah subhanahu wa ta'ala jidhkiisii badbaadiyay arrinta la yaabka leh dhibka leh aadka xanuunka badan leh saxaabadii nabiga loo geystay waxa ku xigtay arrin kale oo ka sii cajiibsan oo ka xasi xanuun badan oo saxaabo inta ka sii fara badan lagu shirqoolay wad ma'saadkii iyo dhibtii ka dhacday bi'r macuuna meesha la dhaho ninba u yimi nabiga sallallahu alayhi wasallam loo jiray Aba Aamir ninkan wuxuu isna sheegtay in islaamka lagu yaadhay markii hore manuu islaamin manuu isan diidin laakiin wuxuu yiri ya rasuulullah waxnu baahanahay cidna barta saxaabada cid qaar kamid ah oo diinta islaamka noogu yaadhan u baahanahay anigaani marti gelinaya oo nimanka kan difaacaya buu rasuulku ilaahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray nimankana 7 kamid ah saxaabadiisii subhanallah oo waliba kamid ah rag quraada ah ee quraanka iyo diinta aadka u yaqaanay saxaabigii loo dhan jiray Mundir ibn Amruna aan hogaamiye looga dhigay way baxeen marka saxaabadani ilaa ay ka gaadhayeen meesha la yiraahdo bi'r macuuna halka markay marayeen oo ay degaan qabaylkan la dhaho reer bani Aamir iyo reer bani Salim ayaa saxaabigii loo dhan jiray Haram ibn Malhan ayaa wuxuu warqad buu qoray ninkii loo dhan jiray Aamir ibn Tufayl oo nin col ah muslimiinta warqadaas oo nabigu soo qoray buu islaha u dhiib kadibna saxaabigaas oo warqadii markuu u dhiibay ayaa ninka kan gaalka ahi wuxuu faray cid kamida dadkiisii in intuu sii jeedo xagga dambe waran laga geliyo la ilaaha illa allah kadibna warankiiba laga geliyay xagga dambe markaas wuxuu lahaa saxaabigani fuztu wa rabbul ka'ba allan ku dhaartay ama rabbiga kacbadan ku dhaartay waan guuleystay kadibna ninkii cadawgii ilaahay ahaa gaalka ahaa reer bani Aamir iyo wuxuu kaashaday qabaylkii reer bani Aamir iyo reer bani Salim
dabadeedna saxaabadii 70-ka ahayd ayaa la hareereeyey, go-doon baa lagu qabtay, wayna la dagaalameen, way wada dagaalameen, waana la dilay dhammaantood. laa ilaaha ila allah. 70-kii saxaabi, 2 saxaabiyo ka fardhaday markii hore ka yara maqnaa mooyaane, laakiin intii kale hal meel baa lagu wada dilay. waxaa ka mid ahaa dadka meesha lagu dilay waxaa keliya ka badbaaday saxaabiga la odhan jiray Kacb ibn Zayd an-Najjari. saxaabigaasna wuxuu dadkii meydka ahaa la dilayay ayuu ku dhex dhacay, isagoo dhaawac ahaan baa isagana looga tegay, laakiin isagu markii dambe waa noolaaday. saxaabigan Camru ibn Dimri iyo saxaabiga Mundhir ibn Uqba oo iyagu ka dambeeyey kooxda tan ayaa markay arkeen shimbiraha meel ku xoonsan meydkii iyo markay arkeen ayay kusoo dhawaadeen meeshii. markaasay waxay la kulmeen nimankii gaalada saxaabada dilay, dabadeedna waa lala dagaalameen. saxaabigii Mundhir ahaa waa la dilay, ninkii Camru ibn Dimri ahaana isagana waa la qabtay oo waa la xidhay, ayagoo doonayay inay isagana ka iibiyaan nimankii gaalada Quraysh. laakiin markiiba way haybsadeen, waxay yidhi yamaanta wuxuu yidhi anigu reer bani waxaan ahay buu yidhi reer Mudar. markuu sheegtay reer Mudar ayay sii daayeen oo dhaheen diyo iyo magna lagu lahaa baan kuu sii daynay, saasaan ku baxaysay, isaga waa la sii daayay. markuu saxaabigani markaa uu soo noqday uu jidka kusoo jiray dhacdadan la yaabka leh uu kasoo noqday, ayaa wuxuu la kulmay wuxuu kula kulmay 2 nin oo geed hoostii hurda. 2 nin markay uu arkay ayuu xumooday raggii gaalada soo mariyay ayuu mooday, deetana 2daas buu dilay. intuu dilay 2daa oo iyagoo hurday intuu dilay ayuu nebigii Ilaahay u yimi oo warkan aadka looga naxayo ayuu u sheegay. dabadeedna wuxuu u sheegay inuu 2 nin halkaa kusoo dilay, isagoo u malaynaya inuu dilay nimankii saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam dilay. mise 2 nin la dilay iyaguna mabay ahaynba nimankan qabaylkan reer bani Caamir iyo reer bani Sulaym midnaba kama mid ahayn, waxay ahaayeen 2 nin oo xulufo la ahaa muslimiinta oo nebiga heshiis kula jiray. subxaan allah. nebiguna markuu arkay 2dan waqaco iyo 2dan dhacdo ee isku xigta, waa waqacadii Rajiic ka dhacday ee 10ka saxaabi lagu shirqoolay, iyo tan ka dhacday halkan ee 70ka saxaabi lagu dilay ee lagu khaarijiyay Bi'r Macuuna. labadaaba nebigu sallallahu alayhi wasallam aad uga murugood, wuxuuna habaaray raggii iyo dadkii saxaabadiisii dilay ee sida xun u shirqoolay ayuu aad u habaaray, ilaa markii dambe uu qur'aan soo degay. markii dambe la nasakhay oo ay lahaayeen ballighuu qawmana anna laqina rabbana faradayna canna waradayna canhu. waxaad gaadhsiisaa qoomkayagii inaan ilaahay la kulamnay oo ilaahayna uu raalli naga noqday, annaguna aan raalli ka noqonay. markii qur'aankaasi kusoo degay waa aayaad la nasakhay, markii dambe ayuu nebigu ka tegay qunuudkii iyo ducadii iyo habaarkii uu habaarayay qabaa'ilkaas 30 habeen ama 30 subax uu habaarayay qabaa'ilkii shirqoolka ka dambeeyay saxaabadiisii sidaa u galay. waxaa ku xigay arrimahaasi markii ay dhaceen, waxaa markiiba miciyaha la soo baxay oo cadaawad muujiyey nimankii yahuudeed, gaar ahaan qabaa'ilkii reer bani Nadiir ee deganaa magaalada Madiina, kadib markii ay arkeen wixii dhacay dagaalkii Uxud oo muslimiinta in laga reeyay. sidoo kale waqacadii Rajiic ka dhacday 10ka saxaabi lagu shirqoolay, tii kale Bi'r Macuuna ka dhacday 70 saxaabi lagu shirqoolay. markay arkeen ayay is yidhaahdeen muslimiintii maanta way tamar yar yihiin oo waa dacafo, marka waxay la soo baxeen wixii ay qarsan jireen ee ahaa khiyaano iyo khudco iyo in ay saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhagar u maleegaan. nebigu sallallahu alayhi wasallam uu soo baxay isaga iyo koox kamid ah saxaabadiisii, isagoo doonayay in qabaa'ilkan reer bani Nadiir iyo yahuuda kamid ah inuu u tago uu kala hadlo diyadii iyo magtii 2 nin ee saxaabiga Camru ibn Damri uu ku soo dilay geedka hoostiisa, sababtoo ah qabaa'ilkan yahuudeed nebiga xulufay yihiin, xulufadana waxay ku yihiin inay magta wada bixiyaan. marka qabaa'ilkan uu tagay reer bani Nadiirka ee yahuuda ah si uu ay uga wada hadlaan diyadii iyo magtii 2 nin ee xulufada la ahaa nebiga sallallahu alayhi wasallam.
markii ay u yimid nebigu sala allahu alay wasalam way soo dhaweeyeen waxay dhaheen yaa abalqaasim soo dhawow waxaad u baahan tahay sheego wanuu sheegay nebigu sala allahu alay wasalam warkiisii arrinka u yimi waxay dhaheen waan isku noqonaynaa ina sug intii ay isku noqdeen ayay afkaysii saareen nimankii yahuudeeda waxay isku dhaheen war ninkii maanta ayaynu haynaa moxamed ahaa halkana waa kaynoo fadhiya aynu ka takhallusno nebiguna wuxuu fadhiistay gidaar buu iska fadhiistay isagiiyo saxaabadiisii kuwii la socday abubakar iyo cumar iyo caliy iyo koox kaleo saxaabadiisa ka mid a dabadeedna nimankii yahuudeed shirqool bay sameeyeenoo waxay dhaheen halkaa uu fadhiyo ayaan dushiisa intaan fuulnay gidaarka dushiisa ayaan dhagax weyn ayaan kaga soo tuuraynaa dabadeedna halkaa madaxiisu ha ku qarxo ninkan halkaas ayaan kaga takhallusna ayay isku dhaheen ninkii ugu habaar qabsanaa camru ibnu jaxaash lo odhan jiray oo nin yahuudiya ahaa ayaa yidhi arrinkan anaa sameynaya subxaana allah wayna sameeyeen oo wayna faleen meeshii bay fuuleen laakiin intaanay khudadii aanay u fulin subxaana allah ayaa waxaa soo degay malakul jibriil calayhi salaam wuxuuna uga waramay khudcadan iyo khudada ay samaysteen nimankan gaaleed ee yahuuddu si ay u khaarijiyeen nebigii ilaahay sala allahu alayh wasalam dabeetana hal mar buu nebigu ka booday meeshii uu fadhiyo isagoo degdegayay dabadeedna waa baxay saxaabadiisiibaa markiiba tabay inuu nebigu sala allahu alay wasalam amar iyo arrin ay uu ku baxay way ka daba baxeen markaasay weydiiyeen yaa rasuul allah maxaa ku kaxiyey markaasuu yidhi uu sheegay warkii inay nimankani ay shirqoolka noocaas ah oo doonayeen inay dhagax kusoo tuuraan nebiga ilaahay sala allahu alayh wasalam si ay u dilaan kadibna isla markiiba nebigi ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu faray saxaabigiisii moxamed ibnu maslama ayuu faray inay ciidan uu soo kaxaysto ciidan baanu soo kaxaystay dabadeedna weerar baaba lagu soo qaaday nimankii reer bani nadiir ee yahuudda ahaa dabadeedna waxaa isku weer baa laga qabto go-doon baa la geliyay dabadeedna nebigu wuxuu ku lahaa sala allahu alayh wasalam yahuudey gaar ahaan yahuudda reer bani nadiiray magaalada madiina waa inaad ka baxdaan 10 casho gudahood waa inaad kaga baxdaan haddaan ku arko yahuudi meelaha marayana waan dilayaa buu yidhi 10 casho gudahood laa ilaaha ila allah marka nimankii yahuudeed markiiba waxay u diyaar garoobeen inay ka baxaan nimankan yahuudeed ee khiyaanada iyo khudcada meesha kula jira aad moodid bacteriyada viruska ku dhex jira magaalada madiina in laga khasaaro ee laga safeeyo xaq bay u lahaayeen waxayna u diyaar garoobeen inay ka baxaan magaalada madiina laakiin ra'sul kufri والنفاق cabdillahi ibnu ubay ibnu salool ninkii madaxda u ahaa munaafiqiinta oo dhani cabdillahi ibnu ubay ibnu salool la odhan jiray ayaa u togo wuxuu ku yidhi waar jooga oo ha bixina aniga waxaan haystaa buu leeyahay 2,000 oo ciidan 2,000 oo nin ayaan haystaa oo idinla dagaalamayo dhufayska idinla galayay sidoo kale waxaa idin hiilinaysa qabaa'ilkii yahuudeed ee reer bani qurayda idin hiilinaysa waxaa kaloo idin hiilinaya qabaa'ilka xulufada la tiidina reer bani qadafan maxaa ka cabsanaysaan idinkuna rag wax iska dhicin karaya ayaa tiidina ha bixina ee magaalada madiina jooga buu ku yidhi subxaan allah deetana ninkii xuyay ibnu akhtab la odhan jiray reer bani nadiir oo madax u ahaa nimankan yahuud ayaa isaguna wuxuu markuu arkay cabdillahi ibnu umaya wuxuu ku akhriyay ayuu yidhi bixi mayno warqad buu soo diray ama cid buu soo diray rasuulka ilaahay markaasuu ku yidhi annagoo bixi mayno waxaad doontidna samee laa ilaaha ila allah kadibna warkii markuu nebigii ilaahay gaadhay sala allahu alayh wasalam ayuu mar kaliya ka hinqaday meeshii oo uu kacay dabadeedna magaaladii madiina wuxuu kaga tegay cabdillahi ibnu ubay ibnu maktuum ayuu kaga sii tegay taladii calankiina wuxuu u dhiibay caliy ibn abi aalib dabadeedna go-doon ayuu ku qabtay meeshii ay ka deganaayeen reer bani nadiir yahuudi nimankii yahuudeedna markiiba waxa ay dhufaysyadii galeen markay dhufaysyadii ay galeen halkii ay ka ahayd in qabaa'il 2,000 oo cabdillahi ibnu ubay ibnu salool ay yimaadaan ay u hiiliyaan ayay khiyaameeyeen oo umay imanin lee sababtu waa maxay sababtu waxa weeye cabdillahi ibnu umaya waa munaafiquna kuwana maaha kaana maaha dhannaba maaha laysuu haaulaa'i walaa haaulaa mudabdabiina bayna dalika laa haaulaa'i walaa haaulaa kuwana kama mid aha kuwana kama mid aha subxaana allah waa munaafiq 2,000 umuu keenin nimankiina wuu halkaas ayuu uga wanjalay oo wuxuu uga baxay godkaas iyuu uga baxay laa ilaaha ila allah sidoo kale qabaa'ilkii kale reer bani qurayda yahuudda ahaa iyaguna kamay soo agdhawaanin iyaguna oo way iskaga tageen reer bani qatafaanku sheegaya in iyagana hadalkeeda daa keligood bay noqdeen
dhufayskiina waa la galay markay dhufayskii ay galgaleen ayaa waxaa la faray in warmo iyo dhagxaan lagu tuuro nimankan oo dhirtii ay ku gabanayeen dhufaysyada oo ahayd dhirtii timirta ahaydna in la gubo waana la gubay markii 6 habeen ama 15 habeen go-doonka lagu hayay ayay markii dambe qulubtoodii rucbiba ku dhacay argagax dabadeedna way isdhiibeen oo waxay dhaheen Muxamedow waan ka baxaynaa magaalada Madiina iminkan ka baxaynaa markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa ka baxay idinka iyo caruurtiina iyo waxa qaadan karaysaan xoolo ah laakiin waxa loo diiday hub inay qaataan hubkii oo kaliya laga reebay subhanallah wayna ku waafaqeen sidaas oo way baxeen nimankii yahuudada reer bani nadiir ahaa magaalada Madiina ayaa lagu xukumay inay ka baxaan wayna ka baxeen laakiin markay baxayeen waxay qaateen wax allaaliyo waxay qaadi karayeen awrtii waxay saari karayeen iyo dameer iyo faras wax allaaliyo wax la qaadi karayo way qaadeen albaabadii guryahooda qaateen oo daaqadihii iyo tariishadihii bay qaateen oo looxyadii bay qaateen oo jiridihii bay qaateen jiridii dhirta ay qaateen subhanallah waxay ka tageen ma jirto la ilaaha illallah waxayna u qaxeen Khaybar halka Khaybar bay badankoodii tageen koox kale oo kamid ah yahuuda reer bani nadiirna dhulka shaam ay qabatay waxa ka islaamay oo kaliya 2 nin oo la oran jiray Yamin ibn Amru iyo Abu Sa'd ibn Wahab labada nin oo kaliya ayaa yahuudi ka islaamay subhanallah muslimiintina way qabsadeen dhulkoodii oo way la wareegeen hubkii laga mamnuucay inay qaataan nimanka reer bani nadiirna muslimiinta ayuu gacantooda galay kadibna xoolihii laga qaatay hubka iyo dhulkii nabiga ilaahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu u qaybiyay saxaabadiisii muhaajiriinta ahaa intii fuqarada ahayd iyo qolyo fuqara ah ay saxaabadii ansaarta kamid ahaa kadibna nabigu sallallahu alayhi wasallam ciidan buu diray si loo soo edbiyo acraabtii iyo reer baadiyayaashii u bartay dhaca iyo boobka iyo bililiqada magaalada Madiina doonayay iyaguna inay weerar ku soo qaadaan marka acraabtaasna ciidanka laga hor keenay ay iyaguna yaaceen buuraha dushooda iyo meelahaas ay qabteen dabadeedna nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu iskaga soo noqday magaaladii Madiina intaasi markay dhacday waxaa ku xigay ghazwa la oran jiray ghazwatu badr athaniya saan soo sheegnay dagaalkii Uhud markan ka soo waramaynay Abu Sufyan iyo Umar ibn al-Khattab markay wada hadlayeen Abu Sufyan iyo Umar waxay ku heshiiyeen in sanadkaasi marka uu dhamaado in la kulan dambe oo dagaal la iskaga hor yimaado gaar ahaan meesha la dhahdo Badr waa meeshii dagaalkii Badr uu ka dhacay marka halkaas waa in la sugo yimaado sanadkii markii uu dhamaystirmay dagaalkii Uhud hal sano ka soo wareegtay ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu la soo baxay 1500 nin ayuu la soo baxay oo muqaatiliintii muslimiinta ahaa waxayna yimaadeen meeshii ay nimanka gaaleed kula ballameen dagaalkii Badr meeshii uu ka dhacay ee nimankii gaaleed ay kula ballameen sanadkii hore dagaalkii Uhud markuu dhamaanay ninka Abu Sufyaan ahana waa soo baxo 200 nin buu soo baxay laakiin intuu jidka ku soo jiray ayaa cabsi iyo argagax ba qalbigooda ku dhacay nimankii gaaleed dabadeedna waxay dhaheen sanadkan ma dagaalami karayno ayagoo marmarsiya ka dhigtay in sanadkan abaar ba'ani ay jirto dabadeedna way noqdeen muslimiintina halkii bay joogeen meeshii ay kula ballameen nimanka gaaleed 8 casho halka joogeen oo ganacsi baa ka sameeyeen tijaare bay ka sameeyeen oo waa ka faa'iideen oo shay bay hal shay bay halkii qiimo badan oo laba laab ah bay ku iibiyeen kadibna rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu qabtay meesha la dhahdo dawmat al-jandal halka dawmat al-jandalna nabigu wuxuu maqlay halkaana qaar ay isku urursanayaan subhanallah oo ay doonayaan inay hujuum iyo weerar ku soo qaadaan magaalada Madiina dabadeedna waa baxay isaga ciidankiisa isagoo habeenka soconaya maalintiina nasanayo oo joogaya si aan loo tabin ama aan loo arkin habeenkii ayuu soconay markuu halkii tagay dawmat al-jandalna nimankii gaaleed halka iyaguna isku urursaday iyaguna markay arkeen Muhammad rasuulullah iyo ciidankiisii ay firdadeen nabiguna kadibna markay firdadeen nimankaasi uu tusay inuu awood leeyihiin muslimiinta inay dacafo cidi ku soo la iskaga soo dhici karaya aanay ahayn ayuu nabigu ku soo noqday magaaladii Madiina guulaha marka istaba joogay ee markan muslimiinta u soo hooyatay oo ay edbiyeen nimankii acraabta dawmat al-jandal sidoo kale qabaylkii yahuudeed reer bani nadiir iyagana meel laga saaray magaalada Madiina
waxay keentay inay magaalada madiine degto. laakiin nimankii yahuudeed haziimada nakraaga ah yacni guuldarrada aadka u weyn dhadhamiyey kumaysan hakanin intaa markiiba waxay dooneen shirqool kale inay u dhigaan muslimiinta. 20 ka mid a madaxdii qabaa'ilkii yahuudeed ee reer bani nadiir ee laga saaray magaalada madiina ayaa waxay u qayladhaan tageen qabaa'ilkii quraysheed ee magaalada maka joogay, ayaga oo ku boorinaya in ay dagaal iyo duulaan kusoo qaadaan muslimiinta. gaalada quraysheedna saan soo sheegnay waa kuwii kadib dhacay ballantii ay la lahaayeen nebiga dagaalkii beder. marka ay kula lahaayeen dagaalka beder meeshuu ka dhacay mar labaad inay dagaal ay ku wada yeeshaan dagaalkii uxud kadib oo kii ku ballamay, waana kii ka daba dhacay marmarsiya keena yidhi waxaan ahay sanadkan waa sanad abaareed oo gaajiyo baahi baa jirta. markaa sumcaddooda xumaatay dartood markay nimankan 20kan nin ee reer yahuudda reer bani nadiir u yimaadeen ay ku booriyeen dagaal ayay dhaheen waan iska dhicinaa dagaal baan diyaar u nahay si aan sumcaddeedii usoo ceshino. 20kii nin ee yahuudeed intaa kumay hakanin waxay ku dhaafeen oo ay tageen qabaa'ilkii kale reer bani qadafaan ayay tageen, wayna u yeedheen waxay dhahdeen moxamed baan lala dagaalamaya, qurayshna diyaar bay tahay lasoo baxa, waxaad hub iyo aalad iyo saanad dagaalada haysataan, moxamedu rasuulullahina maanta isaga iyo diintiisa waa laga takhallusaya. nimankii carbeed ee reer bani qadafaanna iyaguna way ku qanceen oo way la soo baxeen hubkii, waxay la soo baxeen wixii ay ciidamo hayeen. sidoo kale nimankii may joogin yahuudii reer bani nadiire waxay u tageen carabtii kale, iyagana dad bay kasoo kaxeeyeen oo waxay ku qanciyeen in lala dagaalamo muslimiinta. dabcan wayna fushay khitadii iyo qorshihii nimanka yahuuddu ay dhigeen oo quraysh way ku guulaysteen inay kusoo booriyaan dagaal ka dhan ah moxamed iyo qabaa'ilkii kale reer bani qadafaan iyo carab kale oo fara badan. dhankan koonfureed waxaa kasoo baxay qabaa'ilkii quraysheed oo uu hogaaminayo abu sufyaan, wuxuu la yimi 4,000 oo ciidan buu lasoo baxay, subxaan allah. xagga kale barigana waxaa ka yimi qabaa'ilkii kale reer bani qadafaan oo iyaguna qabaa'ilo kale ka koobnaa, qabaa'ilo iyo jilibyo fara badan ka koobnaa oo ay hogaaminayaan 3 nin oo ay kamid ahaayeen cuyayna ibnu xusan oo iyo qabaa'ilka reer bani murra oo isla qadafaankan kamid oo isagana uu hogaaminayay xaarit ibnu cawf, iyo reer bani ashjac oo uu hogaaminayay mascar ibnu rakhiila. raggaas iyaguna waxay la soo baxeen 6,000 oo ciidan ayay la yimaadeen. muddo yar kadibba nimankii quraysheed iyo carabtii kale reer bani qadafaan iyo carabtii kale oo ciidamadoodu ay gaadhayaan 10,000 oo ciidan ayaa soo gaadhay magaalada madiine agagaarkeeda. hadday magaalada madiine markaa 10,000 ay soo geli lahaayeen meel ay mareen dadka muslimiinta lama arki lahayn, subxaan allah. sababtoo dadka ku nool oo dhanba way ka badan yihiin ciidankan 10,000 oo ciidan, dadka magaalada madiine deganba way ka badan yihiin, subxaan allah. laakiin hogaankii magaalada madiina waxay ahaayeen dad soo jeeda oo aan hurdin, markiiba way dareemeen dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka dhanka ah muslimiinta, markiiba feejignaan bay bilaabeen, sirdoonkoodii bay dirsadeen. deetana rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasallam markiiba wuxuu bilaabay inuu gole shir ah uu kula tashado muslimiinta iyo saxaabadiisa. markuu warkii la sheegay la qaadaa dhigay ayaa saxaabigii salmaan alfarisiy radiallahu canh ayaa tilmaamay fikrad iyo khudo aada iyo aada u weyn. wuxuu yidhi yaa rasuul allah, marka annaga ciidanku naga tira bataan oo nala hareereeyo waxaan samayn jirnay buu yidhi khandaq baan qodi jirnay, yacni god baan qodi jirnay markaan joognay dhulka faris, waa beershiyaankii. nabiguna sala allah alay slam khudadan khudo aada u cajiiba bay ahayd oona carabtuna aqoon, waanu la dhacay, waxaana la yidhi waxaana la go-aamiyey khudadan la sameeyo. sababta khidadan iyo qorshahan loo sameynayo godka loo qodayana waxa weeye magaalada madiina juqraafikali ahaan waxa ay ku dhacdaa meel xasiina, yacni meel dhufays adag leh oo 3 meelood 2 meelood waxaa ka xiga buuro waaweyn oo aanay ciidamadu soo geli karayn, askar iyo ciidan toonna aanu soo geli karaynin. dhanna waxaa ka xiga kayn iyo beero jiq ah oo iyadana aan la soo geli karayn. dhanka koonfureed, dhanka waqooyi oo keliya ayaa magaalada madiine laga soo geli karay.
dhankii waqooyina waxa la yidhi saxaabigan uu soo jeediyey in godka laga qodo ama khandaqa muslimiintii markiiba way bilaabeen inay godkii qodaan 10 ninba waxaa loo xil saaray inay qodaan 40 dhudhun wayna qodeen waxay ciidii iyo dhagxaantii ay kasoo qaadayeen garbahooda intay kusoo qaadaan ay kasoo gurayeen meesha maalinta nebigu sallallahu alayhi wasallam gabay buu akhrinayay gabaygii cabdillah ibn rawaha وآخرين اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل علينا السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة لاقينا إلهي كبر يا ربي يو نصب وإن أديك أوغا أما سببتها إلهي يو سببتها سؤول لا يهيمويا نسيك لكم معنان هنون اللهين manaanan sadaqa la iman lahayn oo salaad lamanaan iman lahayn sakiina nagu soo deji iyo deganaansho ku xaggaaga ka timi anagana nasub nimanka gaaleedna inagu kibray shirqoolka noo dhigayna rabbiyow ka nooga ray gabaygaas ay akhrinayeen oo gabay aad u macaana oo saxaabiga ibn rawaha u lahaa sidoo kale nebigu markuu arkay saxaabadiisii oo dadaalayo godkii qodaya wuxuu akhrinayay isagna allahumma la aisha illa aishu al-akhirah fansur lil ansari wal muhajara ilaahay nolol ma jirto aan ahayn nolosha aakhiro ee u gargaaro u hili saxaabadayda ansaarta iyo muhaajiriinta iyaguna waxay ugu jawaabayeen oo ay ku celinayeen marka beedka uu akhriyo nebigu nahnu alladhi baayacna muhammada ala al-jihad ma baqina abada annaga weeye kuwii la baayactamoonay ee heshiiska la galay muhammad ee kula heshiinay jihaad iyo jidka ilaahay lagu diriro inta aan nool nahay abidkayo muslimiintu si aad ah ayay u dadaalayeen oo godkaas si dhaqso ah in loo qodo ayaa la doonayay sababtoo ah ciidankaasi hadduu magaalada Madiina albaabkeeda soo gaadho oo soo galo markaas magaalada Madiinaba waa la wareegaya waana la qabsanayaa si dhaqso ah markiiba way bilaabeen way qodeen saxaabadii dhamaantood way wada dadaaleen laakiin waxa dhibtii taagneed waxay ahayd gaajo iyo baahi baa meesha jirtay waayo xilliga tamartuna way iska yareen dadkuna fuqaray u badnaayeen waxa loo keenaya qofka in yaro qamandiya oo kafka yacni gacan qaadka qamandiyo yaro saliid ama subag yar lagu daray oo aad u baaliyowday baa loo keenayo dhadhankeedu xitaa aanu dhadhan fiican aanu ahayn markaas nabiga ilaahay uu cawdeen oo dhahan yaa rasuulallah gaajo ayaan la soconnaa kasi waxay ku qaateen calooshooda dhagxaan bay ku xirxidheen markaasuu nabigu wuxuu ku lahaa intuu saxaabi kamid ah saxaabadiisii tusayay oo lahaa dhagax baan caloosha ku sitaa ayuu nabigu tusameysay wuxuu nabiguna caloosha ku sitaa 2 dhagax subxaanallah heerkaasi ka gaadhay marka in dhagxaan caloosha lagu xidho gaajadii iyo baahidii jirtay laakiin alxamdulillah way dadaaleen godkii way qodeen laakiin marka xilligaas oo ay tahay markay ugu adag tahay muslimiinta yani marxaladii ay ugu adkeyd muslimiinta ee soo marta 10,000 oo ciidan oo nimankii gaaleed ee Quraysh iyo carabtii reer Bani Ghatafan iyo carabtii kale oo dhan ay weerarka ka soo qaadeen oo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku taageeray nabigiisii mucjizooyin aad u fara badan yani khariq lil aada mucjizooyin la yaab leh waan tirabad oo aad u tiro badan ayaa nabiga ilaahay sallallahu alayhi wasallam lagu taageeray waxa kamid ahaa mucjizooyinkii xilliga dhacay saxaabiga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ilaahay raalliha ka hadisay bihiibe ayaa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku yiri yaa rasuulallah waan arkaynay gaajo badan meesha ay jirto aniga waxa aan gowracay buu leeyahay wan ayaan gowracay xaaskaygiina waxooga cajiin ah bay oo qamandiya ay cajiin garaysay وهيجلس أديك يصح صحابة هذا دور كمدة إيكالي أيوك يري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقو مواهين كلجي وحنا أما إن أنت سكر صحابة دي سجار عنتدي سوعنا مركو أركي إن جابروا يرى عنتدن أنت يرى سجي حاسكي سايف لو فرسمي أيوعد سمدا كدواقع مركز يقول يا صحابتي سير دمبو يرى سبحان الله كن يشم بقولان وقد يقولك لا إله إلا الله أي مركل يوحي كصاد درين قولي جابر بن عبد الله جابر با كعار رحاس كيسيو يرجع ماشي شو جيبه سبحان الله أي كصاد درين
markaasay waxay ku lahayd xaaskiisii waa nebigii ilaahay ma u sheegtay markaasuu lahaa haayo waan u sheegay markaasay tidhi iska dhaafa daba mar haddaad nebigii ilaahay u sheegtay sala allahu calayhi wasalam isagaa war og subxaana allah kunkii nin 1500 nin meeshii bay yimaadeen cuntadii bay wada cuneen iyagoo wada dhargay oo cuntadii ka dhargay oo cuntadiina sideedii ay tahay oo aan meelnaba sideedii ay u buuxdo subxaana allah ayay ka tageen hilibkii iyo cajiinkii iyo wixii oo dhanba mucjiso la yaab labaa la tusay sidoo kale mucjisada kale dhacday waxaa ka mid ah saxaabigii qaaliga ahay Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu walaashii ayaa iyaduna waxay keentay waxoogaa xantoobiye ah oo timir ah ay u sitay dadkan qodaya khandaqa iyo godka ayay u keentay dabadeedna si ay u cunaan waxoogaa timirta yar laakiin timirtaasi maxay ku waa wax gacan qof bini aadan ma haddii xitaa xabad loo qaato 5 qofna ma subxaanallah laakiin subxaanallah barakadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ku dhacday deetana timirtii yareed intuu go' lagu shubay markaasay buuxsantay saxaabadii way yimaadaan way cunaan waa la cunaa tii la qaadaba mid kanun baa timaada meel ay ka timaada lama garanayo ilaa markii dambe markii laga dhargay timirtii go-iiba dhaafto dhulka ku daadatay laa ilaaha illa allah sidoo kale mucjizooyinka dhacay waxaa ka mid ah in godkii sidii loo qadaayay godku uu adkaaday oo cid martaba la waayo oo dhagxaan waaweyn ay ka hortimi saxaabadii dabadeedna markuu dhagxaanta waaweyn loo taag waayo waxaa loogu yeedhiyay Muhammadu Rasuulullah oo lagu lahaa qaado micwalka yacni sabarada qaado ku dhufo dhagax dabadeedna intuu dhagaxa sabarada qaato ayuu ku dhufanayay dhagaxii markaasuu dhagaxu isagoo ciid la moodo carradaas aad moodid dhagxaan yar ah ayuu kala daadanayay subxaanallah Bara ibn Aazib saxaabigan wuxuu leeyahay radiyallahu anhu maalintaas khandaqa la qodaayay godka la qodaayay ayaa wuxuu yidhi waxaan ugu adkaaday dhagax baan ugu adkaaday aan mari weynay dhagax weyn ayaan u taag weynay buu yidhi markaasana rasuulullaahi Muhammad u yeedhnay wuu qabtay buu yidhi macwalkii iyo sabaradii buu qaaday markaasuu yidhi bismillaah kadibna waa ku dhuftay dhagaxii baa kala jabay buu yidhi markuu kala jabay baa nuur baa ka soo baxay markaasuu nabigu wuxuu yidhi Allahu akbar waxa la iisiyay mafaatixdii dhulka Shaam laa ilaaha illa allah haddana wuxuu qabtay macwalkii mar kale ayuu ku dhuftay markaasuu wuxuu yidhi Allahu akbar waxa la iisiyay dhulka Faris mafaatixdoodii mar saddexaad buu haddana ku dhuftay markaas haddana uu yidhi Allahu akbar markaasuu yidhi waxa la iisiyay mafaatixdii dhulka Yaman saxaabadii way yaabtay laa ilaaha illa allah waa maxay mucjizadani markaasuu rasuulku uga warramiyay lahaa allan ku dhaartee markan kii ugu horreeyay ku dhuftay waxaan arkay buu yidhi halka aan u taaganba waxaan arkay qusuurtii cascasayd ama qasriyadii cascasaa dhulka Shaam ayaan arkay subxaanallah iyaga oo ay muslimiintu ay tahay marxaladii ugu adkeyd ay marayaan oo 10,000 oo ciidan ay hareeratuman yihiin oo munaafiqiintii iyo yahuudiina ka dhex shaqaynayso oo gebigooduba oo tirada yareysaa u kooban ayuu nebigu ugu bashaareynayay inay furanayaan dhulka Shaam inay furanayaan Faris inay furanayaan dhulka Yaman inay furanayaan Masar laa ilaaha illa allah wax la yaab markuu nebigu sallallahu alayhi wasallam mucjizooyinkani ay ka dhaceen saxaabadii way ku farxaysay laakiin munaafiqiintu waxay lahaayeen sidee bay suurtagal u tahay buu leeyahay munaafiqi annagiyo musqul aan qabanoon u kaadi tagnaba aanan haysanin ayuu isaguna wuxuu noogu ballan qaadayay ila waa munaafiqi ayuu wuxuu leeyahay isaguna wuxuu noogu ballan qaadayaa inaan furanayno dhulka Shaam iyo dhulka Faris iyo Yaman laa ilaaha illa allah bal u fiirsada marka nebigu ugu bushaareynay arrintaasna waxay wada dhacday 3 sano kadib geeridii nebiga dhammaan dhulku sheego dhan waa laga furtay لا إله إلا الله مركو عمر بن الخطاب وخليفة ونقضي جريد النبي لبس سنة كديب إسلام مركب مسلمين وحي مريين قصر جاء عصاي النبي وشيري مركن والا فرت وعراق يدولك والا فرت فارس يمشي دي ودولك الشام والا فرت سوريا أردن لا إله إلا الله مصر يمن والا فرت مصر ده عمرو بن عاص بصفرت siduu nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam dagaalkan khandaqa ma loo yaqaan ahzab ghazwatul ahzab markuu ugu bushaareeyay leeyahay saxaabadiisii waad furanaysaan ay wada furteen laakiin munaafiqi halkaas isagu nifaaqiisi iyo qurunkii halka la fadhiyay la ilaaha illa allah saan soo sheegnay magaalada Madiina waa magaalo xasiin ah bay ahay
oo saddexda meelood dhan laba dhan waxaa ka xigay buuro waaweyn aana ciidanku soo geli karin, dhanna waxaa ka xigay basaatiin, yacni kayn bay ahaydoo meel jiqa bay ahayd aan cidi soo geli karin oo beeriya waxbaa ku jiray, marka iyadana ciidanku muu soo geli karin. laakiin dhanka waqooyi oo keliya ayaa laga soo gelayay, dhankii waqooyina waa kuwan ka qoday godka. muslimiintu godka markay maalintii oo dhan ay qodaan ayay ka caraabi jireen gelinka dambe, markaasay kusoo noqon jireen subaxa kale si ay u dhammaystiraan. muddo yar gudaheedba intaanay nimankii ciidamadii colka ee doonayay magaalada madiina inay albaabkeeda soo galaan intaanay imaninba way dhammaystireenba. nimankii quraysheed way yimaadeen magaaladii madiina agagaarkeedii markay yimaadeen, nimankii quraysheed ee gaaleed waxay la yimaadeen 4,000 oo ciidan, halka qabaa'ilkii qadafaaniyiintu iyaguna 6,000 ay la yimaadeen. markii 6,000 iyo 4,000 waa 10,000 oo ciidan, subxaan allah, ay saas u soo dul istaageen magaalada madiina, gaar ahaan meeshii waqooyi ee godka laga qoday, ayaa muslimiintu waxaa kuwa kan allahu ka tilmaamayo subxaana wa tacaala aayaadka qur-aanka, walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaluu hada maa wacdana allahu warasuuluhu wasadaqa allahu warasuuluh wamaa zaadahum ilaa iimaanan watahbiita. markay arkeen mu'miniintii axzaabtan qolyahan xisbiyada haysu soo urursaday, markay arkeen ayaa waxay dhaheen waa kan yaboohii uu ilaahay noogu yaboohayay isaga iyo rasuulkiisu, rasuulkii ilaahay iyo ilaahayna run bay noo sheegeen, wamaa zaadahum ilaa iimaanan watahbiita, waxa u kordhay oo keliya iimaan iyo sugnaansho. laakiin munaafiqiintii ku dhex jirtay muslimiinta doonayay in ay khalkhal geliyaan sufuufta muslimiinta, iyagu markay arkeen 6,000 iyo 4,000 oo meela 10,000 oo ciidan markay arkeen ayuu allah waa kan ku tilmaamayo, waid yaquulu lmunaafiquuna waaladiina fii quluubihim maradun maa wacdana allahu warasuuluhu ilaa quruura. waxaad xustaa markay dhaheen nimankii munaafiqiinta ahaa iyo kuwii qalbigooda xanuunka uu ku jiray, markay dhaheen wuxuu ilaahay iyo rasuulkiisu ay nagu ballan qaadeen waxa weeye been unbaana loogu ballan qaaday bay istaageen nimankii munaafiqiintu. ila way kala cadaanay markay dhabta gaadha ayaa munaafiq iyo muslimku kala baxaya. rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu ciidamadan oo arkay wuxuu la soo baxay 3,000 ciidamadii muslimiinta kamida, dabadeedna wuxuu dhabar ka saaray buurtaas ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu dhabar ka saaray, halkaasna uu dhufayska ka galay. nimankii gaaleed markay saa isu doodil istaageen godkii ayay waxay la kulmeen wax la yaab leh oo aan carabta weligeedba hore loogu arkin. waxay arkeen godkan intan la eg iyo xilliga lagu qoday iyo sida loo qoday, waa lala yaabay, gaaladii way yaabeen. dabadeedna waxay isku dayeen inay kasoo boodaan godkii, inay kasoo baxbaxaan oo kasoo boodaan ayay isku dayeen, laakiin muslimiintii safafkoodiiba hortaagnaa oo ciddii isku dayda inay soo baxaan waran iyo fallaadh baa lagu tuurayay, manay awoodi karin inay usoo dhawaadaan. waxay isku dayeen inay waddo samaystaan ay kaga soo baxaan godka, laakiin way u suurtoobi. calaa kulli xaal sida uu marba qolo ay isugu dayeysay inay usoo baxaan ayaa koox gaaladii ka mid a waxaa u suurta galay inay meel yar oo cidhiidhiya ay heleen, dabadeedna way soo baxeen. kooxdan waxaa ka mid ahaa camru ibnu wud, gaal weyn buu ahaye geesi libaaxa buu ahaa, laakiin gaal buu ahaa ninkaasi. waxaa kaloo ka mid ahaa raggii kasoo baxay meesha cikrama ibn abi jahl wiilkii u dhalay cikrama, subxaan allah, iyo daraar ibn alkhadaab. raggaas saa soo baxay koox ka mid a ayaa yimi. markuu camru ibnu wud oo seeftiisii ku jeenay qaaran iyo faraskiisii wataan ay soo gudbeen ayay dhaheen mubaarazan doonayna, mubaaraza yacni in naloo soo baxo. markii mubaarazadii uu doonay waayo ninkan wuxuu ku jeenay qaaran yahay, dirci buu sitaa, dircigii aaladii waxa iskaga celinaya seefaha, koofiyadna madaxuu ku sitaa, lama garanayo ciduu yahay. markaasaa la yidhi yaad mubaaraza la gelay, markaasaa la weydiiyey waayo ninku, markaasaa la yidhi waa camru ibnu wudna carab oo dhan wuxuu ka yahay nin caana, waa libaax, cid u dhawaataa ma jirto, subxaan allah. markii la arkay magaciisoo keliya argagax leh, magaciisoo keliya dadku ka yaaceen, ayuu rasuulkii ilaahay yidhi yaa u baxay. markaasuu cali ibn abi aalib yidhi anigaa u baxay yaa rasuul allah. markaasuu rasuulku ku yidhi war noqo wiil yar baa tahay adigu. cali ibn abi aalib markan waa 24 jir hadduu ugu bato, subxaan allah. markaasuu yidhi yaa rasuul allah anigaa u baxay. markaluu nebigu ku celi yaa u baxay. markaasuu yidhi cali anigaa u baxay. markaasuu nebigu ku yidhi hadda ninkan waa camru ibnu wud.
واللباح وينكني وعمرو بن ود عرب أردن وعان كي هي جزيرة عربية أردن سبحان الله مركزوا علي يري يا رسول الله نيجا وبحاي مركزوا رسولك كلها يا علي وحن كعب سنة ينو كدلو مركزوا يري وحدنا هالسمية يا رسول الله أنا وبحاي سبحان الله علي بن أبي طالب جيسي لمدي سيسي وموقن يسوي فرصة علي بن أبي طالب ويل يرى أي صباح يقول له قاين يسيفتي سوت عمرو بن ود بكورتي مركزوا يحوري يا عمرو حتى لابش وحن مقلبو يري عمرو بن ود نوحو دقني عادة لها waxa la yiri wuxuu ninkan dhaqan u lahaa laba shay hadii la kala dooransiyo mid buu dooran jiray dabadeedna markii hore wuxuu weydiiyay Amr ibn Wad baa ku yiri war waa kuma markaas uu Ali kaasuu tiriya Ali ke wuxuu tirinaya markaa ragii madaxda ahaa ee Ali magacan Ali loo jiray isaga ka waaweynaa markaas uu anigu Ali ibn Abi Talib bana kaasuu ma Abi Talib ibn Abd al-Muttalib baa ku dhalay ha war wiil yar baa tahay dib noqo subhanallah adeer ma cid kale waayeen buu ku yiri kaasoo Ali ku yiri anigu waxaan doonayaa inaan ku dilan dooniyo Amr ibn Wadna kelmadda markuu maqlay waa caro iyo booday markaas uu ku yiri dhageyso Amru yow laba waxaan maqlaynaa laba arrin hadii lagu kala dooransiinaan mid aad dooratid anigu laba arrin baan ku hayaa inaad islaamtid iyo inaad faraska ka soo degtid oo aad ila dagaalantid subhanallah ninkii uu yaabay wuxuu yiri Amr ibn Wad wali ma maantaan u noola waligii qof igu muu oranin ila dagaalan markaas uu yiri soo bax لا إله إلا الله علي بن أبي طالب سيفتي سيبو ساقات يسقنا دبدنا وحده عنو إسلام نما وما بهني أنتو فرس كيسي قبته بالله بدل لقط أفرت لقط بنتو جوي ما ذا حكى جوي أيو سيفتي للصباح عمرو بن ود يا علي بقى إسكالي سيد الدجال كي اللي يسوقوا ذي واحد قياس تن مشهد كنوع عاس هل كجود وين بقى قال دي قريش هل كاسي سو تاجنت مسلمين تنا صفف كود هل كني سو تاجين لبن نبه هل كاسكو هايست وعمرو بن ود يا علي بن أبي طالب سيدي اللي يسوليني يبات بورد كي يسيقاد عرك قادي سبحان الله ساعات مركي اللي يسليني ومربا لبضينين ايس كالان اي مركل يا وحا صفكي كدح لبضينين ماشي بورد كي عيدي وحا ما اركين اي بورد كي وحا كدواقي الله أكبر مركزو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يري يا الله أكبر ود لي علي بن أبي طالب بدل عمرو بن ود لا إله إلا الله مركي عمرو بن ود اللي دلي كوحدي يريد كلا صباح دين ماش أيه سيدا يبقى أو يقولون أكو عرّي قد كي ماشي كصباح سدين أنتو سي عرّي يبقى زبير بن العوام أو هل كان تاجن بقى كدبا عرّي الرجي ميت كم يدبو يسوونك كم بالك كلا ديجا لبا دان أو يسقي يفرس كيسي باللبا قيبات بوكا كلا ديجا لا إله إلا الله عبد الله بن الزبير بوح لي أباه وحن أركاي يسقو ميت كم يدا قال دي هل كصباح يسي لبا دان بالك ديجا يسقي يفرس كي بالأود ولا هاو فرسد الزبير بن العوام سبحان الله نيكا عمرو بن ود هل كسلك كتو خلص عمرو بن ود وايو بهل بوها وحش بوها سبحان الله تذكر أنك عبسين شيرين مركي دم علي بن أبي طالب ونكا كتخلصينا مجا علي بوح النقدين جزيرة عربات ماشي كله ليه علي بلقى عبسين شيرين وقاتل عمرو بن ود ونكي دير عمرو بن ود لا إله إلا الله جيسي نمتي علي بكم ذهين قالت إن مركي أركين نكي عمرو بن ود إن للدلي أي نبي الله وحى كل دهين نكاس إنتاس وجيلي حولا لدينسين يا أنا دينسين أي نكا ميت كيس ناسي بلو فرصة نكاس قيمها وكلها نمك قالت دبدنا وحيول النبي قف إنتان وحوله سمعنا الله تور ميت كيس قد كي بالله تور وقاتين ميت كيس إن قالت قريشات وحي هدنا يسكت دين قد كسيون أيوة صباحان لكن ورمه يفلاره أي مسلمين تلوه رستاجناين mana inay ku guuleysan mar kaliya inay ka soo gudbaan godkii intii dhibtaas iyo jihaadka noocaas iyo dagaalkaas muslimiintu ay kula dirirayeen gaalada ay salaadihii baaba nabiga ilaahay sallallahu alayhi wasallam salaadihii baa dhaafay markaas Umar ibn Khattab wuxuu lahaa habar Allah ku riday nimankee sidii noo mashquuliyeen waxay naga mashquuliyeen salaadii casr oo waxaan tukaday buu ku leeyahay maqrib markay in yar ay ka sii hadhsanayd ayaan tukaday buu ku leeyahay rasuulka ilaahay markaasuu ku yiri anigu waa maan tukanin buu yiri rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam markaasuu weesaystay markaasuu tukaday salaadii casr wuxuu tukaday salaadii casr markii qoraxdii ay dhacdayba oo maqrib ay taagan tahay ayuu salaadii casr tukaday kadibna salaadii maqrib uu ka daba tukaday
marka warmihii iyo waxaa la isku turtuurayay fallaadhihii la isku turtuurayay muslimiinta waxaa ka geeriyooday 6 nin 10 nin oo gaaleedna halkaasay ku lagu dilay iyagana oo warankii iyo waxyaalihii la turtuurayay baa ku dhacay rag kalena seefa lagu dilay waa kuwa Camru ibn Wadiy baa kamid ahaa marka fallaadhihii ay gaaladu soo turtuuraysay waxay ku dhacday saxaabigii Sa'd ibn Mu'adh ayaa warankaasi ama fallaadhaasi ay ku dhacday oo nin gaal ahaa oo Qurayshta kamid ahaaba soo tuuray loodan jiray Xabbaan ibn al-Arafa ayaa soo tuuray markii uu fallaadhaasi ay ku dhacday ayuu wuxuu yidhi Sa'd ibn Mu'adh ilaahay buu wuxuu ka baryay ilaahayow haddii uu dagaal noogu hadhay buu yidhi nimanka Quraysheed ee gaaleed hadduu dagaal noogu hadhay inoole ilaahayow waxaan ogahay in aan aad u jecelahay buu yidhi inaan la jihaado oo aan la dagaalamo qoom rasuulkii ilaahay soo saaray waan aad baan u jecelahay haddii uu dagaal uu hadho dagaal aan la geliyo nimanka Quraysheed uu hadhisan yahay inoole haddii kalena oo ay dagaalkaasi noogu dambeeyana meeshan yar ee uu nabarku igaga dhacay ee dhaawaciga soo gaadhay fur oo qarxi aan ku dhinto sidaas sidoo kalena wuxuu ku sii ducaysanay ducadiisa kamid ah ilaahayow ha idilin ilaa iyo yahuudii reer bani Qurayda ay arrinkoodu si un u dhacayo ilaahay ha idilin ayuu ku sii ducaystay إن شاء الله تعالى هل كسن كسو جبنا قيبتي هراء الدجال كي أحزاب مركز دنبايا نسي وديتنا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.